waxaan ku suganahay hoyga madaxtooyada maamulka SSC Khaatimo mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay wareysiga ugu horeeyay intii dawlad goboleedka SSC lagu dhawaaqay in aad warbaahinta qaranka siinaysid ka soko waxaan rabnaa inaad warbixin guud naga siisid safarka ra'iisul wasaaraha bismillaah amal waad mahadsantahay waa idin mahadnaqayaa adiga iyo dhammaan bahda warbaahinta qaranka dowrkii muuqanayay ay ku lahaayeen tabintii iyo inay bulshada Soomaaliyeed caalamka u soo bandhigaan booqashada taariikhiga ahayd ee uu ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ku soo gaaray caasimadda dowlad goboleedka SSC Khaatimo ee Lascaanood oo ku mahadsantiin dowrkiina booqashada uu ra'iisul wasaare ku yimid Lascaanood waxay booqasho taariikhiya marka dhinacyo fara badan laga eego waa markii ugu horeysay magaalada tan iyo intii ay jirtay jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo booqasho ku yimaado waa markii ugu horeysay intii dawladdii Soomaaliya ay burburtay kadib uu mas'uul sare ku yimaado booqasho magaalada Lascaanood dhanka markaynu ka eegno waxay booqasho taariikhiya dhanka kale markaan ka eegno xilliga ay ku soo beegmayso iyo muhiimadda ay lahayd oo booqashadaasi ay timi xilli dadka deegaankan iyo caasimadan ku nooli ay soo mareen duruufo iyo dhibaatooyin adag oo caalamka iyo Soomaaliya marxaati ka ahaayeen xilli ay dadka deegaanka kani go'aansadeen inay aayahooda iyo masiirkooda u tashadaan xilli dadka deegaanku ay aasaaseen ama ay dhisteen maamul iyagoo iska leeyihiin dhinacyo fara badan oo aynu ka eegno booqashadaasi waxay mid taariikhiya ra'iisul wasaaruhu keligiis ma iman waxaa la socday wafdi ballaaran oo ka kooban wasiirada xukuumadda dan qaran qayb ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo runtii la oran karaayo waa markii ugu horeysay ee wafdi miisaankaas leh oo xajmigaas leh ay booqdaan gobol ka tirsan Soomaaliya waa markii ugu horeysay wafdi heer federaal oo miisaankaas leh ay soo booqdaan qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya dhankastoo aan ka eegnaba waxay ahayd booqasho taariikhiya midho dhal ah dadka deegaanka ee Soomaalina u furtay beej cusub marka laga yimaado safarka ra'iisul wasaaraha waxaa lagu doortay Lascaanood oo duqeyni ku socoto marxalado kala duwan ayaad soo marteen saacadan aan taaganahay waxaan wareysi kula yeelanaynaa iyadoo ay SSC noqotay dowlad goboleed la mid ah kuwa dalka ka jira SSC xagee u socotaa ka soo dowlad goboleedka leedisi SSC waxay u socotaa amaalay adeer midnimo Soomaaliyeed waxay u socotaa qarannimo Soomaaliyeed waxay u socotaa nabadgelyo laga xasiliyo ka dhalatay dhammaangeega Soomaaliyeed waxay u socotaa in ay qayb ka ahaato dawlad dhiska Soomaaliyeed inay qayb ka ahaato horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliyeed iyo ufuq iyo aafaaq runtii qof kasta oo deegaanka kani uu ku naaloonayo Soomaali mid ah iyo qaran wada jira markii ugu horeysay si rasmi ah lagu casuumay madasha wada tashiga qaran ee uu gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda ka sokow in lagu casuumay madashaas maxaad geyn doontaa ama maxaad ku biirinaysaa madasha waa su'aal aad u qiimo badan weeyaan horta madasha markii ugu horeysay uu ka qayb galo mas'uul reer waqooyi ah weeyaan qolada reer koonfureed baa madasha iska haysatay marka waxaan leenahay waa nimi waxaan soo kordhin doonaa qaybihii kala duwanaa ee qaranka Soomaaliyeed oo badankoodii ay dhan yihiin taladii qaranka oo maanta waqooyiga koonfur baa heerarka ka joogaan taladii qaranka oo reer SSC ay bartanka u fadhiyaan waxaan soo kordhin doonaa midnimo iyo wadajir iyo Soomaalinimo waxaan soo kordhin doonaa in dhinac la iska dhigo khilaafaadka iyo waxyaabaha kan Soomaaliya ragaadiyay isla mar ahaantan aan boorin doonaa
in loo jeesto Soomaalimada iyo qaran Soomaaliya oo dib quwadiisa ula soo noqda waayahay waxaa loo madlan yahay in SSC ay qabato shirweyne looga tashanayo ayaha dowlad goboleedka SSC shirweynahaasi muxuu salka ku haya waa runtii waxaa loo madlan yahay shirweynahaas SSC Khaatumo dadka isugu iman doonaan shirkaas wuxuu salka ku hayaa waxa laga jawaabayaa qodob dastuuri oo ku qoran ahdiga ku meel gaarka ah ee maamulkan lagu dhisay oo sheegaya in la isugu yimaado muddada 2 sanadood inta dhammaan ka hor shirweyne ay isugu yimaadaan beelaha maamulkan ku midoobay isla mar ahaantaana ay kaga tashanayaan masiirkooda iyo halka ay uga sii gudbayaan 2 sano kadib markii lagu doortay waxa ugu weyn la rabay waxay ahayd in la helo wax dadka deegaankana leeyihiin kasoo maamulka aynu haatan taaganahay sidee ayaad u soo dhisi doontaan maamulka kan ku xiga amaalay maamulkanka ku xiga waxa soo dhisanaya dadka iyaga maamulkii horena dhistay maamulkan dambana iyaga dhisan doona marka shirweynahaas la isugu yimaado ergooyinkaasi waxay ka doodin doonaan ansixinta dastuurka iminka gacanta lagu hayo dastuurkaas kadibna waxaa la aadi doonaa in la soo diyaariyo golayaashii maamulka soo socda ee muddo xilad soo socda talada qaban lahaa golayaasha kadibna waxay doontaa doorashooyinkii isbedelka loogu sameeyay madaxda maamulka ama loo cusboonaysiin lahaa sidaa daraadeed maamul dhiska iyagu wuxuu ku saleysan yahay rabitaan shacab iyaga dhisan doona hadii Ilaahay ka dhigo maamulkooda gudbina doona xukuumadan hadeerto ama maamul goboleedkan hadeerto waa maamul ay dhisteen ama u dhisan dadka ku dhaqan SSC Khaatumo aan filay marka Khaatumo la raacsiyo macnuhu waa si cadaanaya dadka ku dhaqan Sanaag dadaan walaalahay weeyaan isku mid baanu nahay isku duruuf baanu nahay isku marxalad baanu maraynaa hadeerto waxaan wadaagnaa ka hortagga khatarta gooni-goostada Soomaaliya waxaan wadaagnaa hadafka ilaalinta iyo dhowrida midnimada qaranka Soomaaliyeed waxaan wadaagnaa wax kasta oo laba qof ama laba ummadood oo isku mid yahay ay wadaagi lahaayeen qorshaha maamulkayaga kan ama guud ahaanba deegaanka kan iyo dadkiisa uga qorshaysan waxa weeye in labada gobol ee Sool iyo Sanaag dadkeedii la isla baadi doono la mideeyo maamul ay dhan yihiin oo ay ku midaysan yihiin ay wada dhistaan waa run deegaano dadkaygu ay degan yihiin baa laga soo barakiciyay dadkayagii dhibaato fara badan baa loo geystay waxaan filayaa Soomaaliya iyo caalamku waa daawadeen barakicintii iyo boobkii iyo dhibaatadii dadka loo geystay dadkii wali guryahoodii waa laga haystaa beerahoodii waa laga haystaa deegaanadoodii waa laga haystaa way ku noqonayaan ilaahidankii waxa ku celinaya maamulkooda wuxuuna ugu celinayaa si kasta oo suurtagal ah oo lagu celin karayo oo guryahooda ay nabadgeli ku heli karayaan waayahay dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan meel marisay qorshaha 5 sano ee soo socda lagu dhaqayo guud ahaan Soomaaliya qorshaha ama NTB-ga qaranka doorkii SSC Khaatumo ma lagu cadeeyay qorshaha isbedelka qaran xukuumadda federaalka Soomaaliya ay dejisay 5 sano ee soo socota 2025 ilaa 2029 maamul goboleedkan SSC Khaatumo ee deegaanadiisa waa ku cadiyay waa ku xusan yihiin laga qayb galiyay waxaan rajaynaynaa in qaybtii ay lahaayeen Soomaaliya dhama ay sugaysay iyagoo heli doonaan hadii Ilaahay ka dhigo markii lagu doortay waxaad ka guuleysatay qolihii ka soo horjeeday hatan waxa ku yimid ra'iisul wasaarihii iyo dawladii oo dhan waxa si official lagu casuumay shirka madasha waxaad heshay dawlad goboleed rasmi ah kasokow in hatan aad SSC ka tahay madaxweyne bilowgaagii hore xagee bulshada kaga jirtay tan iyo intii ay jirtay khatarta gooni-goostada Soomaaliya waxana halgamaa dhaba oo u taagan in la ilaaliyo qarannimada dalka Soomaaliyeed in dadkan deegaanada SSC Khaatumo ku nooli ay masiirkooda iyaga u taliyaan oo go'aan guracan oo ay koox Soomaali ka cararaysa goosatay aan iyagana lagu dabaqin ama aan lagu ijbaarin qayb ka ahaadaan waxaan u taagnay halgankaas weelna oo u taagnahay halkaas bulshada kaga jiray halgankii waa madaxweyne ku noqotay halgankii oo dhaba oo soconaya baan hogaamiye ku noqday waayahay waxa jira dad ka aragti duwan maamulkaaga ama hogaankaaga dadka maxaad u qancin weyday amaalay horta kala duwanaanta aragtiyuhu
waa sunno kowniya weeyaan dadku dee caqli mida iyo maan mida ma wada sitaan maan rag baa la yidhaha waa magacyo afkood waa laga yaabaa in ama way jirtaaba in dadka qaar ay aragtiyo maamulkan aan hogaaminayo ay kaga duwan yihiin aragtiyaha qaar taas macnaheedu ma aha in hadafka guud iyo masiirka lagu kala duwan yahay laakiin arrimo la xidhiidha sidee hadafka lagu gaara sidee loo xaqiijiyaa masiirka waa laga yaaba qof waliba dhinac ka arko waa soo dhoweynaya aragtiyahaas waxaanan u arkayaa marka u horeysa inay tahay hodantooyo in dadku ay kala aragti noqdaan siyaabo kala duwan u fikiraan marka u dambaysana lagu midoobo danta guud waxaan ugu baaqayaa dalkan baa inaga dhexeeya Soomaaliya qarankan baynu leenahay maamul goboleedkan baynu leenahay meel wanaagsan baynu soo gaadhnay waxaynu ku soo gaadhnay kow fadliga Ilaahay laba dhiigii shuhadadeena iyo dhalinyaradeenii godka u gashay aynu wada xaqiijino xulumkii iyo riyadii ay kuwaas u dhinteen ee ahaa in ay ayatiinkooda iyo masiirkooda Soomaali bartanka kaga jiraan kacdoonka buluuga intii aan la soconay wuxuu ahaa kacdoon shacab dawladda SSC Khaatumo kacdoonkaas way ku soo caanamaashay oo dawlad goboleed ay ku heshay maxaa dawladda uga qorshaysan dadweynaha in ay hagto ama ay maxay hayto shaqooyinka dawladnimada ugu adeegto kacdoonka buluuga ah iyo dhalinyaradii bilowday jamaahiirta halkan ka salaamaya waxaan leeyahay waad guulaysateen halgankiina walbartankeenu kaga jirnaa inta dhiman aynu israacin aynu ka wada shaqayno difaaca qadiyadeena iyo qarankeena aynu ka wada shaqayno horumarka iyo dawladda dalkeena aynu ka wada shaqayno xaqiijinta hamiga in badan oo dadkeena ahi ay ku fikirayaan ku hamiyayaan waad kartaan inaad markale xaqiijisaan waad kartaan inaad markale guulaysataan waad kartaan markale inaad Soomaali waxayan idinka filayn aad dhigtaan waad mahadsantiin baan leeyahay hadeer iyo mar horeba waayahay dastuurka haatan gacanta lagu hayo ma mid ku meel gaaraba mise waa mid rasmi ah oo ay yeelanayso maamulka SSC Khaatumo dastuurka imika gacanta lagu hayo amaalay waxa gacanta ku hayo horta guddi khubaro ah oo ku filan inay diyaariyaan draft ama mustawada dastuur oo dadkan iyo maamulkan ay yeeshaan dabcan ma noqon doono ku meel gaar dastuurkaas waayo hadeera waxa laga soo baxay ahdi ku meel gaar marka ku meel gaarkii ku meel gaar draft iyo kale looga wareego sabab keenaysa ma jirto dastuur rasmi ah oo maamul goboleedkan uu yeesho buu noqon doona hadii Ilaahay ka dhigo erga asixin doonta aftidoona wal raacsin doona hadii Ilaahay ka dhigo dawladda dhexe waxa aad ka wada shaqeynayeen sidii nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed loo adkeyn lahaa waa maxay doorka nabadda ee SSC Khaatumo SSC Khaatumo geeyiga Soomaaliyeed nabadeyntiisa door weyn ka qaadan doonta guud ahaan gaar ahaan colaadii ka dhacday magaalada tan iyo dawlad goboleedkan iyo nawaaxigeeda in la nabdeeyo oo colaadii meesha ay ka baxdo door weyn baan ka qaadan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaanu dawladda federaalka ah ra'iisul wasaaraha iyo wafdigii uu watay ka wada hadalay suuragalnimada in la helo nabad waarta oo dhexmarta annaga iyo dariska ee galbeed naga xiga dawlad goboleedka aad madaxweynaha u tahay ilaa iyo haatan waxa wasiirka hal gabadh oo kaliya inta la socono dadka ugu badan soo halgamay reer SSC waa gabdho away gabdhaha kala shaqadooda gabdhihii halgan kan bilaabay ee kacdoonka buluuga qayb ka ahaa ee halgankii runtii ammaan iyo sharaf bay mudan yihiin midna waa ku xusinaya amaalay hablaha reer SSC Khaatumo waxa lagu tilmaamaa oo Soomaaliya dhexdeeda kaga tilmaaman yihiin hablo qadiyada tan iyo geedi socodka Soomaalinimada hormuudka ah waa run golaha xukuumadda gabadh baa ku jirta laakiin shaqooyinka la qabtaa kaliya golaha xukuumadda kama socdaan meelo badan bay ka socdaan shaqada gabdhuhu ay qabanayaan inay wasiir u noqoto maaha meelo kale oo wasaaradaha ka muhiimsan bay hayaan kuwa kale oo gabdhaana wasiir ugu soo biiri doonaan hadii Ilaahay ka dhigo 60 kadib adiga oo wada madaxweyne calanka Soomaaliya ayaad Muqdisho ka degtay ma islaadaha calanka xurmo gaara ayaad u haysaa calankan aad arkaysa ee buluuga ah ee xidigta shanta gees ay ku taal quruxda badan leh Soomaaliya oo dhan baa horta curisay ama in la taago u soo halgantay laakiin deegaankan aan caaw anigu matalayo SSC Khaatumo iyo bulshadiisu
halgankii loo soo maray calankan keenadiisa qayb weyn bay ku lahayd haddeeroo u dambaysay wixii dadkan lagu dilayey ee lagu duqeynayay wuxuu calanka buluuga adeeraadii marka ilaa iyo bilowgii ilaa iyo maanta waxa aanu u dhimanayna maadaama calanka buluuga uu yahay si baan xurmo dheeraad ugu hayn karayn calankii anoo sida ka digay caasimadii muqdishona aad baan u faraxsanahay su-aasheeda ugu dambeysa waxaa jira xubno ka mid ah dadka reer SSC oo xilalka haya maamulo kale sidee ayay u sii joogi karaan maadaama ay SSC noqotay dowlad goboleed rasmi ah dadka kan iyo deegaankani maamul buu leeyahay dowlad goboleed buu leeyahay golayaal matal buu leeyahay baarlamaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxgarad iyo eliid iyo dhaqan ku midaysan fikradaasay leeyihiin ciddii ka baxday ijmaaca iyo midnimada dadkan ay qaateen oo ku midoobeen masiirkooda inuu tashadaan iyagana wadana meesha u socdaan waxaan rabaa inaad halkan fariin uga dirtid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed fariintaada maxay noqonaysaa fariinta aan ummadda Soomaaliyeed u dirayo caawa waxa weeyaan wadankeenii waxa uu ku jiray muddo aad iyo aad u dheer burbur saameeyay gobol kasta iyo boqol kasta oo Soomaaliya waxaynu ku jiray muddo dheer colaado iyo dirir aan dan inoogu jirin waxaynu ku jiray isu muuqasho inagoo aynu isu muuqanayno ilaa aynu ka mashquulay dadkii qarankeena kan ciddii duulaanka ku ahayd inaynu u soo wada jeesanayo baynu ka mashquulay sidaa daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan u dirayaa inay ka midoobaan afkaarta iyo Soomaalinimada iyo sidii qarankan aynu u ilaashan lahayn qarankan iyo dalweynahan Soomaaliya wuxuu leeyahay cadow aan Soomaali ahayn Soomaaliya cadow kuma aha dalkeena sidaa daraaddeed aynu cidda cadowga ku noqon karta dalkeena u wada jeesano inaguna aan iscafino gacmahan isqabsano guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka gaarka ah aan ku wareysanay madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Fardhiye barnaamijka waxa soo saaray iyo tabiye ka ah anigu Amal Qaaja waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada farsamada iga caawiyay barnaamij noocan oo kale ah inteenu isku arkayno nabadgelyo